web pageska. qaybtan waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano html tags. html tagsku waa waxa uu ka samaysan yahay web page kasta ama website kasta. html tagsku waa hidden keywords, waa kelmado ka qarsoon browserka oo hadhow marka websiteku samaysmo ma soo muuqan doonaan, laakiin browserka ayaa wuxuu u isticmaalaa qaabkii uu soo bandhigi lahaa contentska ama waxyaabaha uu ka kooban yahay web pagekaasi. tagiska badankoodu waxay ka kooban yihiin laba qaybood. qaybta hore waxaa loo yaqaanaa opening part, qaybta kalena waxaa loo yaqaanaa closing part. tusaale ahaan tagga loo yaqaano html waa opening taggi /html kuna waa closing taggiisii. marka closing taggu wuxuu la mid yahay uun opening tagga, balse wuxuu kaga duwan yahay oo isaga la socota calaamadda forward slashta. waxaa jira tagiska qaar kale oo iyagu ka duwan kuwa aynu hore usoo sheegnay oo iyagu aan u baahnayn in la raaciyo waxaa loo yaqaano closing tag. tusaale ahaan tagiska waxaa ka mid a tagga loo yaqaano img oo loo isticmaalo marka la doonayo in websiteka ama webpageka lagu soo diro image. html fileku waa inuu ka koobnaadaa ugu yaraan essential tagska ay ka mid yihiin html si uu markaa u noqdo webpage failed ah oo web browserku ama browserkaaga uu soo akhrisan karo. okay, iminka waxaanu create garan doonaa websitekeenu ugu horeeyey. qaybtii ka horreysay waxaanu soo sheegnay si uu websitekaaga ama webpagekaaga u noqdo mid failed ah oo shaqeynaya inuu ka koobnaado markaa essential html tagska. essential html tagska lagama maarmaanka ah ee websitekaagu la-aantood aanu shaqeynayn waxaa ka mid a tagga loo yaqaano html iyo taggan kale loo yaqaano body. tagska kale muhiimka ah waxaa ka mid a head, inkastoo head isaga laga tegi karo, balse hadhow marka websitekaaga uu bato ama contentska websitekaagu ay bataan ay ku imaan karto markaa ama functionalityga websitekaaga wax iska dhimi karaan. iminka tusaalahaan websitekeena wuxuu ka kooban yahay 4 tag ayaynu odhan karnaa oo ah kuwii essentialka ah iyo tagiskan kale. marka tagiskan kale waxaa ka mid a kan loo yaqaano h1 ama waxaa loo yaqaano header, iyo taggan kale isna loo yaqaano hr, iyo taggan saddexaad oo isagana loo yaqaano paragraph. kan h1ku ay ku qoran tahay ama headerka waxaa loo isticmaalaa markaad doonayso inaad websitekaaga kusoo dirtid header ama ciwaan. kan kale hrka isaga waxaa loo isticmaalaa in lagu soo daro websiteka waxaa loo yaqaano horizontal rule ama line toosan oo horizontal ah. marka taggan wuxuu ka mid yahay tagska aanu soo sheegnay ee aan lahayn end tag, kaliya wuxuu leeyahay starting tag, looma baahna in la raaciyo waxaa loo yaqaano ending tag ama closing tag. taggan kale p isagana waxaa loo isticmaalaa markaad doonayso inaad qorto qoraal caadi ah ama paragraph aad kusoo dirto websitekaaga ayuu isaguna ayaad isticmaali doontaa. marka websitekeena si aan uga shaqaysiino waxaan sameyn doonaa filekan waan save garanaynaa, kadibna waxaan u bixin doonaa magac. tusaalahaan waxaan leenahay test. markaad magacii fileka qortid waxaad qori doontaa markaa extensionkiisii. marka extensionku waa inuu noqdaa mar walba .html. .html haddaanad ka dhigin fileku wuxuu noqon doonaa file kale oo ma noqon doono html file. .html fileka ama extensionkaasi waa extensionka filekaagan ka soocaya faylashii kale ee txt-ga oo kale. markaad extensionkii raacisid waxaad oran doontaa save, kadibna waxaad tegi doontaa meeshaad ku save garaysay fileka. right click baad ku dhufanaysaa dushiisa, waxaad ku furi doontaa markaa browser ka mida browseradeeda, tusaale ahaan google chrome oo kale. haddaad u fiirsatid iminka pagekeenan ama web browserka waxaa kasoo baxay ama websitekeena wuxuu u ekaaday qaabkan. halkan waxay nooga caddaatay in websiteku ama web browserka aanay kasoo muuqan wax loo yaqaano tagiska. iminka haddaynu eegno web browserkeena ama websitekeena waa kan, kama muuqdaan wax tagisi, only waxa meesha ka muuqda waxa weeye wixii tagiska ku dhex qornaa.
tusaalahaan taagan title oo kale waxaa ku dhex qoran dima web, wuxuuna kasoo baxa xagga ugu sareysa ee browserka. taagan kale ee h1 ama headerku isaguna waa kan oo lama socdaan wax h1 ah, waa qoraalkii labada h1 ku dhex qornaa oo keliya. taagan kale horizontal rulku isaguna wax kusoo daray lineka toosan ee horizontalka paragraph ama linkan paragraphka qoraalkana waxa kusoo daray taagan kale ee p. marka taagisku waa hidden keywords oo kama soo muuqanayaan hadhutoole website-kaaga.